deegaanada dhaca gobolkan waqooyi bari ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ku soo badanayay dhibaatooyinka dhanka dhimirka iyo xanuunada kale kuwaasi oo la aaminsan yahay inay sabab u yihiin adeegsiga waxyaabaha maanka dooriya iyo daawooyinka qaabka qaldan loo adeegsado iyadoo dhibaatada ugu badan ay arrintan la kulmaan dhalinyarada shaqo la'aanta ah kuwaasi oo qaba inay isaga yarayn karaan fikirka badan balse ugu dambeyn ku waasha ama sidoo kale kaga hor yimaada waalidiintooda iyadoo taa laga duulayo ayaa magaalada Tangaarisa gaar ahaan xaafadda Sagaaray oo ku dhow masaajidka Muxsin laga hirgeliyay xarun dhaqan celin ah taasi oo lagu magacaabo Subi Rehabilitation iyadoo fikirka arrintan uu lahaa Sheekh Aadan Xasan Ibraahim oo ah shakhsi aqoon durugsan u leh arrimaha dhaqan celinta dadka habaaba iyo caasi waalideenka iyo kuwa nolosha ka dhacay waxaana xariga xaruntan ka jaray oo marti sharaf ka ahaa murashaxa u taagan loolanka kursi baarlamaaneedka magaalada Dr. Maxamed Cabdi Miamia Sheekh Xasan Ibraahim ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay arrintan iyo waxa ku kalifay inuu magaalada ka yagleelo xarunta dhaqan celinta ee Subi Rehabilitation. Subi Rehabilitation and Treatment Center aad ayaan kaga mahadcelinayaa qaabka sharafta badan ee nagala soo qayb gashaan xafladan madaxda iyo mushmuwa waan aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa iyo akhyaarta kala socota markaan aragnay baahiyaha loo qaba xarunta ama rehabilitation-ki gobolka waqooyi bari sida ay dhalintii drugska ama waxyaalaha dilooda ama ka wada waxbarashada sida loogu baahan yahay aan aragnay waxaan ka hagaajinay meeshaan gobolka maartay Gaarisa degmada Gaarisa xaruntan ayada aan ka asaasnay wayna ku mahadsan yihiin akhyaartii iyo madaxdii naga soo qayb gashay waxa weeye insha Allah inaan wax badan bedelaan rabnaa dadka maxduurinta ee xaafadaha lagu hayo ee silka ku xirxiran ee xanaanadooda xitaa ay hoos u dhacday in guryaha lagu xiro xaafadaha loogu kala hoydo marka laga shaqato habeenadii loo imaanayo in xarunta la keeno aan quraamino la tacaalno waxaan leenahay dhakhtar special oo maartay maxaa la mental health oo isbitaalka weyn ka shaqeeyo wax badan in bulshada u adeegno ayaan diyaar u nahay marka waxaan ku soo dhaweynayaa microphone-ka maartay xildhibaanka iyo akhyaarta maartay iga dambaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh murashax Dr. Maxamed Cabdi Miamia ayaa dhankiisa soo dhaweeyay arrintan waxa uuna ugu baaqay waalidiinta magaalada oo ubadkooda u baahan dhaqan celinta caasi waalideenka ama dadka waashaya iyo kuwa dhimirka looga jiro ee guryaha lagu hayo in la geeyo xarunta Subi si ay ugu dawoobaan inkastoo daawada ay ka sugnaatay xagga Rabbi. xaruntan gadaasheeda magaceedu ka muuqdo baan maanta xarig jaraynay Subi Rehabilitation ala dhahaa waa xarunta dhaqan celinta dadka xanuunsan runtii dadka xanuunsan xagga dhimirka runtii waa wax loo baahnaa meelo badan in lagu soo badiyo ay u fiican tahay maxaa yeelay dadka drugska iyo waxyaabaha daroogada badsada aad u badan baryahan dadka iska maskaxda mental problem qaba jira marka qaar oo xagga dhimirka dad cilaaj u baahan baa jira oo quraansaar iyo hawlihii diiniga ah u baahan xaruntan saan rajaynaya inahaas oo dhanba way isku koobi doontaa hadduu ilaahay ka raali ahaado marka aad baan usoo dhaweynayaa insha allahu tacaala tii dad badan anfacdo inuu ay noqotaan rajaynaya insha allahu tacaala. qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ayaa dhankooda soo dhaweeyay arrintan waxaana ay kaga mahadceliyeen maamulka juhdiga uu ku bixiyay arrintan maadaama magaalada Tangaarisa gaar ahaan xaafadaha kore ay naadir ka tahay in laga helo xarumo lagu dhaqan celiyo dhalinyarada. alxamdulillaah ya mas'ala sallallahu alayhi wa sallam ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdulillaah allah wa sallallahu alayhi wa sallam cabsida allah baan nasarina insha Allah taala ka faraacinka wuxuu naga dhacayaa wadana haddaan nahay ilaahay aan ka cabsano cabsiisa dhabta allah aan ka cabsano inta ka bacdi meeshaan xaruntan waa xarun mataqaanaa alxamdulillaah yaliraaho Subi liraaho ilaahay baa Subi farsamada ilaahay baa iska leh laakiin ismka lagu magacaayo oo qosol magaalada ka saasa
كسر دوالا بشوي أنت صار العرسين وكم عسين أننا نحن إن شاء الله تعالى وحضر بك بدل طبعا لنا ضد كان تبجر كم نوضي نرشي صب أي لفتي العضي إن شاء الله تعالى سيدا عنوشة من حول يبدونها وعمال القرآن قد كبر دونا وكتبتي حديث دلوا آخر دونا ووضعت كالجاجر دونا وكيل لعفة وحنان دونا وعافمات كلا سحرين دونا وبشوي لما تهد أي مكان على هذا الدول إليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد وحلي عبد الله آدم حنو ماني حرجرك حرمت المصوب لقد علمت وحنو لنا يا فائدة بدل ما نوجد جرتا علمت معناها مقدرات كوديودي ذاتك حرم سنة وارن أما والد قمتا أما حافظها جو فائدة بدل ما بيشن سوهين إساسا كيو حديث لو برنايا قرآن كي لو برنايا تربية لو برنايا سيرة النبي لو برنايا حياة بدن أو فائدة إلى ذهب جرتو قف كي يسوع سوق لي معناها بالود يدشى محنوسا سوق لي سوق حياة يوكب حياة مركب وحنا لا هاي وعمل أنا ده فرح سنة هاي وأنا سودويني أدنى وفرح سنة أنا وحنا كمان هذا كشعبين دون أرتاس إن شاء الله دي لا يرى مركب وأنا وينكم بعدين شرفت النوع بعدين سيدا حلبانك أو كله iyo dumarka qaybahooda kale marti sharafta kale ku soo qaybgashay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiina anfacdo oo bulshada wax tar u lahaato Allah ka dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.